marka ugu horeysa geed socodka ciidankan si lagu aasasay waad ogtihiin waxa lagu aasasay duruufo u gaar ah deegaanka oo markii dambana markii xaaladii dawladnimada ee dalku ay si khalkhalaysay meel kale ka bilaabatay deegaanku wuxuu soo maray baan malaynaya madaxweynihii 13 baan ahay 10 madaxweyne oo iga horeysay deegaanku isagoo hay'ad amni oo boolis leh yuu jiray una shaqeynayo deegaan caadi ah hal madaxweyne ama madaxweynihii iyo badh adu qof in yar ka soo gaaray iyo hal madaxweyne iyo aniga labada madaxweyne bay horta ka shaqeeyeen iyo waxa laga yaabaa xilligii madaxweyne kale inuu jiray laga yaabaa laakiin inta ay hawlgalkoodu uu noqday wax taam ah labada jeer muddadii annaga naga horeysay ciidankani waxa uu ka hawlgalayay inuu arrimihii jabadihii ka jiray deegaanka iyo hawlihii la xiriiray loogu talagalay marka shaqooyin booliska caadiga uu qaban karin ayaa loo diray way maana kolka shaqooyinkaas dhamaadaan sida ciidamadii ka horeeyay ee fadno daraash loo oran jiray uma la oran lahaa shaqadiina way dhamaatay leedin diray waa leedin baahna badaba shaqadii loo asaasay ay tu gaar ah ahayd xilliga iyada ee dhisnaayeen ciidankani shaqooyinkii ay qabanayeen iyo qaabkii u qabanayeen iyo aragtidii shacabka wad ka war haysaan shacabkii aad ka dalateen iyo xiriirkii idin dhexeeyay idinka waad ogtihiin isbedelku markuu dhacay kadib shaqooyinka aad qabateen waad ogtihiin iyo xiriirka maanta shacabkiina aad leedihiin iyo kalgacaylka idinka dhexeeya shacabkiina iyo sida maanta qof walba oo deegaanka jooga wadnihiisa iyo qalbigiisa iyo maskaxdiisa aad ugu dhirtihiin maadaama ay dareemeen inaad ahaydeen ciidan danahooda ka shaqeeya oo difaaca oo dhibaataynin maadaama ay ahayn kuna diirsadeen shaqooyinkaad hayseen marka taasaas ahayd laakiin isbedelka dalka ka jira iyo marxaladaha siyaasadeed mar walba hawlo cusub ay nagu soo kordhiyaa jira kuwa siyaasiya kuwa amni kuwa dhaqaale oo nagu soo kordhiyaa jira marxaladaha siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ay nagu soo kordhaya mid walba sideeda in loo wajaho oo loola jaan qaado oo loo maareeyo loo baahan yahay bilowgii isbedelka marxalado dhanka siyaasadda nagu soo kordhay baa jira oo ogtiin midayntii xisbiga ka mid ahayd waagaana dhiilooyin iyo dhawaaq laga sameeyay marxaladii siyaasadeed soo kordhay ahayd deegaankan xisbiyadii ka jiray deegaanada in heer qaran hal xisbi lagu midoobaday aragtida laga bixiyo waad ogtiin waan ognahay in maanta faa'iidada aan ka helay ay tahay dadka kale inaan wax la qabno qowmiyadaha kale oo aynu isku midna wax nagu gaaray una jirin oo miskii aynu wada joogno oo taladeeni iyo wixii cid kale ayna ku tashanayn meel aynaan ogeyn meesha in loo fadhiyo waan ognahay waxyaalo laga saxayo oo in la sii hagaajiyo u baahan oo farbo way jiri karaan nidaamkaas maamulka iyo xiriirka dawladaha ka dhaxeeya iyo waa wax laga yaabo in waxyaalo badan la hagaajiyo laakiin hadda yaa ugu yaraan arrintii laga deerinayay dhibaato weyn uguma keenin waana ogtihiin faa'iidooyinka laga helay dhinaca kale marxaladaad amni baa hadda soo ayaa yimid oo ah in hay'adihii amnigana heer dal ahaan muxuu ahaayey la waafajiyo sidii dastuuriyada ay u qornaayeen marxaladaasna ka dabaalashadeeda iyo jaanqeedkeeda mas-uuliyad baa naga saaran taasna waa tii hadda aan ka wada hadalay aad sida fiican uga hadasheen sidaa marka loo soo dhigayo marxaladda hadda aynu galay waa marxalad dib loogu habaynayo xoogii ciidanka gaarka ah booliskii gaarka ahaa ee la odhan jiray booliska gaarka ah in dib u habayn lagu sameeyo ama reform wax la yidhaha la geliyo weeye sida loo dhigayo dadka raba inay qalalaase uga faa'iidaystaan hawshan ay u dhigayaan baabi'in wax la yidhaha ma jirto idinkuna waad ogtihiin waayo bal baabi'intu waxay tahay iyo dib u habayntu waxay tahay horta anu kala saarno oo macnayno baabi'intu waxa weeye ciidankani wuu kala tegey ninba meel baa lagu daray qaarna shacab baaba laga dhigay mushaharkoodii darajooyinkoodii
agabkoodii hawlgalladii ay ku jireen mas'uuliyaddii ay hayeen tasiilaadkii ay haysteen waxba kama jiraan wey waa la baabiyey saasaan u qana intoodiiba way haysanayaan oo shaqooyinkii ay hayeenna way haynayaan ee amniga gudaha inay sugaana darajooyinkoodiina sidoodii bay u jirayaan mushaharkoodii iyo muxuu ahaayey tasiilaadkoodii iyo waxay u baahnayeen sidii buu ahaanayaa weliba waxbaa u soo kordhaya oo wax sharciyaysan oo aan heer deegaan ku ekayn ee dal oo dhana oo qofka booliska ah ee halkan ka taga ee booliska gaarkii saa idinkuba sheegteen keelayaashan deegaanada isku xigta ma dhaafi karo isagoo bahalkaa wata laakiin hadda qofka booliska ee deegaankii nin la aqoonsan yahay oo meel walba mari karo oo dareysku xidhan yahay ku mari karo oo mutaaqica ku mari karo uu noqonayaa wey kolka waa wax soo kordhay oo xuquuq ah oo idiin soo kordhay iyo darajo idiin soo kordhay weeye in ciidankan booliska ah booliska gaarka haddii uu shalay ahaa maanta inuu noqdo booliska rasmiga ah ee deegaanka inuu noqdo wax soo kordhay weeyaan dhinacaas waa dhinaca faa'iidada dhinaca khasaaraha yacni khasaare aad qabteen oo laydinka reebo faa'iiduu idin yahay waxaa ka mid a shaqooyin dheeriya oo idinku aydaan lahayn oo hayseen ilaalinta xuduudaha internationalka ah ee deegaanku uu leeyahay ee dalalka uu leeyahay waa mas'uuliyadda ciidamada qaranka siyaanad bay lagu siiyaa agab bay ku haystaan diyaarada u haystaan idinkoo aan hawsha haysanin baad hayseen ood qabanayseen mushaar dheeraada aad ku qaadan kolkaa in mas-uuliyaddii culayskii noocaas lahayd la idinka reebo oo culayskii shaqada idin saarayd la yidhaahdo shaqada cid kalaa yeelatay waxaan u malaynaya qof u barooranaya inuuna jiraynin ma hawl dheeraada la isaaro na jirin shaqadaadii caadiga qabsanaysaa lagu yidhaha waxaa soo hadhay amniga gudaha deegaanka suguddiisa shalayna idinkan baa ahaa maantana idinkan baa noqonaya sida dadka qaarkii ay jahawareerka ay uga furayaan keelayaashii aad ilaalinayseen ama muxuu ahaayey checkpointyadii idinku aad maamulayseen iyo magaalooyinkii amniga aad sugayseen iyo miyigii aad qabaa'ilka kala hayseen aad sugayseen idinka un baahaynaya cid kale oo dastuuriyan shaqada la wareegi kartaa ma jirto waa shaqo booliska rasmiga ah ee deegaanku uu leeyahay wey oo idinku aad leedihiin kolka amniga gudaha iyo waajibaadkii idin saarnaa iyo adeegii shacabka iyo ilaalintii shacabka iyo difaaciddii shacabka intiiba idinka idin saaran tahay qaab dhismeedka aad u taallaan ee hadda u taallaan iyo dareeska aad xidhan tihiin haddii la bedelo macnaheedu ma aha in ciidankii la baabiyey baabi'in iyo in dib u habayn lagu sameeyo waa laba kelmadood kala duwan mana aha kelmad lagu midaaqarinaya mid la caddaynaya wey kolka ciidan mushaarkiisii haysta agabkiisii haysta tasiilaadkiisii haysta darajadiisii haysta waajibaadkii shaqo uu shalay gudanayay intuu isagu lahaana isagu qabanaya intuuna lahayna dheeriga ahaydna ciddii lahayd layidhi ka qabta layidhi dhimashadii iyo dagaaladii iyo rafaadkii haystayna laga baajiyey waa ciidan faa'iida usoo kordhay waanad ogtihiin faa'iidooyinka ku jira arrintaa idinkuna si ballaaran oo wanaagsan yaad uga hadasheen runtii xuquuqa dheeriya ayaad helaysaan dhibaatooyin oo dheeri ah oo idin saarnaana waa idinka hadhayaan dhinaca kale agoontii dhaawicii ciidankan ku jiray say noqonayaan sidoodii baa daryeelkooda u haysanayaan qaabka ugu wanaagsan ee iyaguna ay xuquuqdoodii iyo daryeelkii ay mudnaayeen ay ku heli lahaayeenna mas-uuliyad dheeraada yaa la iska saarayaa wax haba yaraatee iska dhimaya iyo wax iska bedelayaan ma jiro waxaan u sheegayna marka iyagana inaan muxuu ahaayey agoon iyo dhaawac iyo dhimasho iyo cid kasta inay la mid yihiin qiimaynta la siinayaa kuwa nool ee maanta shaqaynaya waayo kaa dhintay haddii aan la daryeelin qoyskiisii ka nooli damaanad iyo moraal kusii shaqeeya ma heliyo taana in lagu baraarugsan yahay inaad ogaataan ayaan rabnaa qaabka shaqooyinka aad hayseen marka laga tago waxaa jira dadyow odhanaya ama u dhigaya damaanadii ismaamulkii ama federaalismkii aynu haysanay
xuquuq insaankii iyo nabadii inoo soo korodhay 5 sanadood inta ku dhow hadda ee dadku nasteen difaacii shacabka intaas cadawga laga difaaciyay soo korodhay ciidankan haddii dib u habeen lagu sameeyo meeshay ka baxayaan dad oran yaa jira taas jawaabteedu waxa weeye damaanadda ismaamulka xuquuqul insaanka difaaca shacabka deegaanka Soomaalidu hogaaminta siyaasadeed ee deegaanka oo madaxweynuhu ka bilowdo oo kaabineegu ku xigo oo xisbigu ka mid yahay oo baarlamaanku ka mid yahay iyo waliba odayaasha guurtida ee deegaanka iyo shacabka laftigiisa ay qacanta ugu jirta hay'adan ciidankii waa aalad go'aanada intaas ay isla qaataan fulisa weeyaan waa aaladii fulinaysay go'aanada siyaasadeed ee hogaaminta siyaasadeed ay qaadato dareenka shacabka iyo dareenka odayaasha cid walba waxa isla garanno qaadato weey damaanadu marka waa shacab isku duubni hogaamin siyaasadeed ka go'aansho hogaamin siyaasadeed iyo shacab isku duuban yaa damaanad u ah inaga xuquuqeena dastuuriga ah ee halganadii faraha badnaa aynu ku helay ee ah ismaamulka xaqina ismaamulka inaan soo dhacsano hogaamin siyaasadeed oo ka go'aanshahaasi leh ay u baahan tahay iyo shacab isku duuban waxa inoo haya damaanada isku duubnideena go'aanada siyaasiga in qaadayno ayaa inoo haysa inaan xuquuqdeena u halganno oo wixii dhibahee ina soo gaadha ama si maadaama dawlado hore in soo dhibaatay ay jiri jireen aynu ka dhidhino oo aynu ka dagaalamo aynu diidnana qaab dhismeed ma baahna shalay iyo dar 50 sano iyo 100 sano markii la jabhadeynayay la dagaalamay qaab dhismeed inoo dhisnaa oo aynu ku jabhadeynayay ma jirin eegaynu qaab dhismeed haysanaado marka dadku inuu dulmiga diido ka dhidhiyo oo wax ku soo socdo masiibi hadii jirto oo meel go'aan uga qaato liyo boolis maanta jiri oo boolis loo bedelo iyo kuma xidhna taana kuma xidhna damaanadeenu kuma xidhna dib u habeyn ciidan lagu sameeyay qaabka uu yaalo wuxuu ku xidhan yahay ka go'aanshaheena damiirkeena siyaasadeena garaadkeena isku dubnideena ku xidhan yahay taana insa loo ogaado ayaa iyaduna muhiima ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ku maadnaqayaa fahanka cad ee ka muujiseen arintaas iyo sida ay ugu heelantihiin inaad maaragtay ugu hoggaansantaan una fulisaan dhammaan wixii awaamiir ahaa ee la isla qaatay halkan kaga wada hadalay waxa kale oo aan isku mahadnaqayaa oo soo koobi karin mahadnaqeeda hawlaha baahsan ee qabataan ciidan ahaan ee shalay aad hayseen maantana aad haysaan berri aad bulshada waxay noqotaan diyaar